asxaabta qiimaha leh maanta waxaan idin hayaa sheeko taariikhi ah oo cajiib ah sheeko ka timid Yurub gaar ahaan dalka Spain magaalada la yiraahdo Granada waxay ku taallaa koonfurta Spain agagaarka buuraha waaweyn ee Sierra Nevada qarnigii dhexe Granada waxay ahayd xarun islaam oo xoog leh dadka ku noolna ay ahaayeen dad boqolkiiba boqol muslimiin ah noloshooduna waxay ahayd mid shareecada islaamku ay hagayso magaaladani waxaa ku yaala qasri lagu magacaabo Alhamra kaasoo ay dhiseen boqorradii muslimiinta ee ka talinaysay dalka Spain qasrigan gudihiisa waxaa ku yaala darbiyo waaweyn beero cagaaran ceelal biyo ah oo dhex socda iyo farshaxanno aan caadi ahayn ilaa iyo maanta dadku ay la cajabaan malaayiin qof ah ayaa sanad kasta tagtaa halkaas si ay u arkaan quruxdaas laakiin sanadku markuu ahaa 1492 wax walba way isbedeleen boqorradii Katoliga ee Ferdinand iyo Isabella ayaa qabsaday magaalada markii hore waxay ballan qaadeen in muslimiinta ay diintooda sii wadan karaan laakiin ballanqaadkaasi wuxuu noqday mid aan jirin muddo kadib muslimiintii waxaa lagu qasbay inay masiixi noqdaan qaarna magaalada ayaa laga masaafuriyey qarnigii 17aad muslimiintii Granada gabi ahaanba waa laga saaray Spain magaaladii boqolkiiba boqol muslim ahayd maanta waxay noqotay mid aan muslim ku nooleen maanta Granada waa magaalo masiixi ah laakiin qasrigii Alhamra oo ay muslimiintii halkaas ku nooleed dhiseen weli waa sidiisa wuxuuna marqaati ka yahay quruxdii iyo sharaftii islaamka uu lahaa ee halkaas ku noolaa Granada waxay ina baraysaa hal arrin oo muhiim ah bulsho kasto haddii ay lumiso diinteeda iyo midnimadeeda taariikhdeeda way lumaysaa waana cashar annaga oo dhan na laga rabo inaan fahanno meel kasto aynu joogno tani waa sheekada Granada magaalo mar ahayd boqolkiiba boqol muslim maanta aysan jirin muslim asal ahaan halkaas ku nool xasuusnow taariikhda waa cashir qofkii akhriyana way u digtaa